aan la fulinayn wixii markaasaa la fashilinaya markaas waxa leeyahay miyaana qoran soo ma garan marka waxay la tahay nimanka madaxda ah waa al-amru bil ilaahi wixii al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar ina wax wanaagsan u sheegtid wax xun aad kala talisid laakiin aad la shaqaysid waa ina la shaqaysid وأنا سبورت جريسي شعب أهو شغالة أهو هدي أنا سبورت جرين دولة ده ما نجهز. كل أنا سبورت جرين. عم برتو وحن سبورت جرين عم بيقول لي ماذا تكلم كيس هدوكين وأنا أدرك حسن وشيء سنتين. كلها تلتلي فلا تلي ما مش شيء تلي كف فيري فما في كلام مو بعه لمانت ما تقول واحد برتة على مو بعه عاو وحش شغله تفيري وما تحسي سكر ده خلدني متكست مستوس التسوى الوفي متكست ولا جوس التسوى الوفي حدود التسكفة إذا يسوى يمكن هذا أنا ما تحول ترى هذا هو خلدي شو هو خلدي محمد سيد هو خلدي متكست وحو خلدي وحو سحوري صار انت صار واحد وصل marka aniga waana adiga anigu sheegay waxba ma kordhinayso waxa kordhinay kaliya inuu yiraahdo okay this is what you are ka khaldama jidkiisa ma maray markaas supportigeega hada ka gala qof kasta laakiin marka adiga kula qumay yahay isagoo khaldan aniga ila saxaya isagoo khaldan marka adiga uu yiraahdo okay adiga aqoontaada uma baahan sababtoo reehbal ay u dhigay aqoonta iska hayso wala u degan marka abo qabilkaaga waxa adiga kuma aqoon walba ka timid gildiraha laga wala u dhihi karaa oo soo aray gildiraha hayso in kana aqoon labkee waxa la qabtaa soo wala u shul waa problem hadda ma haysteen problem hadda ma haysto wala u dhihi hal shay hadda ku soo dhigo ninka hal bolt baa good kusi hada xasuustaan iyo wax la yiraahdo ninka la kulmo فلت ما تقدر عرق يعرف حمد يفهم محمود الجيل عرق يفهم محمود الجيل هبنتي روحي ترى عرق افكارسي ابقى عرق افكارسي فكان يحكي وقدام السوق وخلدات جرا الا بدل والمحرم يوصي ادرس وكل ما بكبر حق يلي صبت فيري حديقه ولدي قايل السبب الله عروسي بس ما كسر عليها كويس وإلا هلا مركب جيس سواب بحوي هذا no this is the way ده 1.2 so far أهاد إنه قصة أهاد إنه قصة لكن مركب حد وزير ده بس ممكن أو حمرة جوكتا عندي أبغى أوريك يا على بيها كير أنا خير على بيها وده عيسى ترى دي كده أنا خير على بيها ما هو خصبين إيجارات جينا marka loo deemaysto laakiin gadaha ma ay gurigooda kuma sanay keenaya marka leadership fiican haduu ninkaas uu jiyo anigu personal support u daay haduu laakiin keeni waayo oo ka cabsado nimanka murashada gabadha qaba dadwada way u kacdaa qala bas kaska baas la buu baas waxaan ku tali lahaa si loo helo maamul wanaag in la sameeyo office of personnel management oo ka madax banaan hay'adaha kale oo dawladda ka jira because haddii la yiraahdo wasiir ha soo doorto ama wasiirkii haysto ha keeno dadkiisa ha soo qorto de waxaa imaanaysa bias iyo waxaa imaanaysa wax maar la qaldo iyo wax dad mudneen la keeno marka haddii la helo hay'ad ka madax banaan oo ayaga shaqaalaha siinaya you have to resume-ga xafiiskaas ku soo dhacaya qualification-ka sameynaya and they maxaa dhahay ay ka geeray xafiisi wasiirkii inuu shaqo lahaa ma ahan maartay magacaawidii oo shaqaalaha waa independent ka noqda xagga weydiisana shaqada ku baa office-ka Mareykanka exactly that's what we do marka taas haduu sameeyo waxa leeyahay cadaalad
maya ma noqonayso haddii office la sameeyo officeaas ninka u qalma la gela kii beeraha la gela maya office oo laakiin shaqaalaha wasaaradda shaqaalaha ka madax banaan sida OPM ka hadda office personnel manager OPM haddii loo sameeyo oo wixii shaqo doon ama shaqo rabo ee geeyaan xafiiskasna wuxuu soo qoranaa budgetkiisa iyo inta position uu qabo position kasna waxaa lagu doonayaa position descriptionkiisa wixiisa lagu dalacayaa marka waxaa loo baahan yahay in la helo xafiis ka madax banaan si loo helo cadaalad horumar iyo dad wax yaqaano oo loo helo ibu loo شكرا غير الله كسيو شكرا عدو غير الله كسيو بروفيسور محمد جو هيد كل أنا جلست لكن ديالك just one point that I work on today and I disagree with. I'm pointing us to how I really and for my job and رأي قلب والمفكس رأي and even عمر بن الخطاب سحاول ويرد إلى lack of advices إلى الأمر مشورة بينهم ما نزلنا من الخطوة يعني أدريموها ويكور قفنا يعني لا يقال قفنا يقال من قفوه في عين yes لا يبيه في لكن he specialized in something economics terrorism political science that was the dissertation هذا جعل marka qofba wuxuu specialize ku yahay marka qof dhahayo wax kasta uu ku fiican yahay ay qoran kala jirta ilaa ilaa qof kasta oo yaqaan qofka jiro wax ka yaqaan marka and it's very important inuu yeesho dad wax bartay oo counselor not they don't have to be a wasiir or noqdaan just advisors markuu yiraahdo waxaan sameynaa inta kale yihiin bas waxaan inta ka soo qaatay qof madaxweyne advisor isu leeyahay marka waa inuu lahaado advisors markuu yiraahdo waxaan rabaa beeraha inaan saan ka sameeyo ama export and import inaan saan ka sameeyo ama telecommunication inaan saan ka sameeyo dad waxaan ku fiican kusoo takhasusay advisors inuu lahaado waa very important haddii kale whatever he feels uu sameynayaa then wadankii wuxuu noqonayaa just one sided but muhiim waaye advisors uu u baahan yahay in each field or specialized one of expert level in their own field okay su-aasha u dambaysa waay marka qof walba see u aragtaa meetingkan qof walba see u aragtaa meetingkan Yusuf Goreed meeting wanaagsan oo fiican oo rayga la isku wadaarsaday waay marka saas oo kale waxaan rabnaa in marar bishii hal mar la sameeyo si aan uga faa'iidaysano are you sure bish hal mar u baahanahay يعني هدي أو by the way سأوتي رواية بلول بواقبنا أوكي ورفع عمر ساسا هيا أبو بكر كور الشركة زوية واشر الصومال واحد بدل كم صباح يا واشر الصومال لكن فكرت في عن صومال هيا هذا جاهد وعكوة معناها صومال ده وفي عنانا وكوة جاهد هذا كور الشركة هذا إلهي وحن كبرينا إن نيدنا في عن فائدة مدنا اللهم ولينا خيارنا وقفنا شر أشرارنا آمين غير الله بسيط هاي جاهد محمد what do you think شركة؟ شركة مهمة وإلا هذا بس كيف كنت عاوز تدير مدة ومدة good وبدنا أن هذا ولا هلا communication هذا جرو is very important كوانا وكلام بدنا هذا جرو أساس مين تسوي حالك صوبة ما يبغى يستعمل هذا طبعا very important and then هدي أو حاجة مثلا إنترنت ما يبغى يستعمل كذي يضطر يوحى هذا كي يراي فرماجة ليه كي because of communication كان جري إنترنت يسوي كذي يوحى ولا كي ولا كي فالمهم هو أفكار مكان أين ويلا سمعته وحنا عارف جوهر جوال جوال marka وانا loogeeyay marka waa dhacda marka hadallo muhiim ah waxa important jida oo niyadna haday fiican tahay at least qof fiican oo advisor oo leeyahay dadkii way maqlayaan haday takay waxa wanaagsan laga qaadanayo marka muhiim waa inay hadlaan oo ay dawaan sheegtaan that's why town hall meetings loo sameeyaa good أول أنت أقول هذا في الصومال حتى حالها واشر الصومال حكم صباح يخص بحيل كل ما يجي صومال فيسبوك مارك حال والد بين وين لا عدوى ما بين وأنا الفيل مسك حاجتنا فيه ما بيطلع والله بس الواقع ما كسر حاجة جروب كسر أفضل من وصل لي هذا ليك وحاسوق الفيسبوك حاسوق لي من كوالد من مجال مركب وحاسة إلى سحسبة واسكت على معنا ولي قال ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي مركز تطف ما أصلا سميه
markasta wuxuu eegi jiray qofka wanaaggiisa isagoo xaaskiisa xumaan badan laga sheegay oo weli qaar saxaabada kamid ahaan yani marka waxaa jira hadal isaga furtay ma eegi jirin xumaantoodii laakiin he used to concentrate on waxa wanaagga ay sameeyaan maasha allah qofka mar kastaba xumaan haddaa arkin waa la qariyaa mar laga hadlo waxaa wanaagay qofku sameeya khaasa lagu shaqeeya qofka isagaa iska bishoonaana waayahay my friend what's your name what do you think of this meeting Oh, I think it's great. very good right Yeah. thank you like it right Yes. you're gonna come next month you're gonna come right He doesn't live here. He lives far away. oh you come for the meeting far away thank you very much Yeah. laakiin kuwa Brother kaliya is Soomaaliya out of I know. state. It's Somali. okay waa qana ma Soomaaliya hadda baa ay intisar Brown University. for full scholarship maasha allah Brown University Congrats. Somali Good. language, okay? Future leader. yes insha allah Future leader. haye intisar gabagabadu waaye intii shir la qabtay waad joogtay intii waa joogay waa fiican yahay fikrad fiican baa la hayaa niyad fiican baa la hayaa Good. kusii socono Good. yaan la gifabgaray maasha allah dadkuna insha allah way soo badan qof walba qof ha soo wado insha allah haye wasiir aniga laftigeyga inta badan waan joogay waxaan ugu jeclahay meelaan aado markaan ku tegayo islaamka ilaahay dartii iyo markaan ku sheegayo soomaalinimo maasha allah marka waa shir aad u fiican in la wado weeye waxaana rajaynayaa xilliyada dambe la hadli doono ama kulamadeena dambe in lagu daro halkaan saan effective uga noqon karno waddankaan aan deganahay saan effective uga noqon karno maadaama community ballaaran waddanka ay degan tahay saan u muuqan lahayn politically awareness aan dadka ugu jiri lahayn aan dowladda ula hadli lahayn waddankeena advocacy ugu samayn lahayn in lagu soo daro shirarka dambe insha allah maalin bil walbana la wado consistencyga dadku way soo badan doonaan soomaalinimada la wado positive fikra always lagu fikiro wixii khaladaadee dhacaan sida hore looga sii socdo insha allah horma la qabanaya xafladaadii fundraising walaal maxay ahayd bisha april koodeeda ayaa waxaan sameynaynaa fundraising loo sameynayo isbitaallo laga dhisayo loo dhisayo dumarka iyo caruuraha loo dhisayo marka walaal waxa weeye bisha april koodeeda ayaa waxaan qabnaa fundraising communityga halkaan degan oo lagu sameynayo anandel nova 6 galabnimo oo lagu dhisayo isbitaallo dumarka iyo caruurta ah isbitaallo agtooda xarumo caafimaad dumarka iyo caruurta ah runtii communityga degan northern virginia aad iyo aad bay maxay tahay arrintan usoo dhaweeyeen dareenkeeda iyo supportigeeda gabdhaha especially aad iyo aad bay usoo dhaweeyeen kulligeena waxaan idinka filanaynaa inaad nagu caawisaan imaatinkeeda iyo also inaad naga tigto waxaan birinti garayn 700 oo tigid baan birinti garaynay waxaan doonaynaa tigidyada in laga soo iibiyo communityga qof walba $30 weeye kii imaanayana yimaado kii aan imaanayna laga soo iibiyo taasina waxay keenaysaa in communityga isku tagto kalsoonida communityga adkeynaysaa jacaylka adkeynaysa dad ka dhaxeeya qof walba wuxuu ogaanayaa in maxay tahay isagana haddii dhib ku yimaado ama hadduu damcaynu shaqo qabta lala qaban karo marka this is a community effort weeyaan la-aanteedna waxba ma qabsooman ilaa iyo haddana aad iyo aad baan special gabdhaha ugu mahadcelinaya raggana waxaan qabaa inay iyaguna ka mid noqon doonaan waxay ahayd in la sameeyo sign your name and address ma name and email si aad dadkaas ula hadasho tiraahdo kale hadda wax sign in sameeyay ma haddaan bilaabay waxa weeye warqadii qalka waa haysanaa maxay tahay waxaan soo qaadnay inaan ka qaadno waxaan usoo talagalnay in dadka qaarkood ay tigidada iibin karaan inta haddaad samayn lahayd caawimaad sign in u samayn lahayd teleefonkooda iyo emailkooda waxay ahayd inaad u yeerto baratiraado hebel ma imaanaysaa qof walba ha isqoro qof walba ha isqoro wallahi communityga gabdhaha horta especially they were really maxay ahayd weyn baa gabdhaha ka sameeyaan kan laga siiyo kulligood diyaar waxaa weeye tigidada iibiyaan community gaadhsiiyaan raggana saasaan ka filanaynaa because qof kasta wuxuu yaqaanaa 10 ama 50 qof sida loo lahaa ladies first sida loo lahaa gabdhihii iyo ayaga marka isticmaala eventkas wiilasha marka waa jawaab ku dhacay maylaka isku sheeg imaanayaan tobankan qof maaragtay at least markooda waa markaad qof walba ku imaanaya $30 waa iska fiican wax badan ma ma waxaan jecelnahay insha allah waxaan jecelnahay tigidada dadaan u dhiibno
dadkaas inta kasoo iibiyaan dad inta kamid ayaana u dhowna tikidyada kasoo iibiyaan qofkii ama meel waxaa kula socota madaxdii iikeen qaar iikeen qaar iikeen abow mar hore uu yidhi facebooka gelina iisoo sheega waan isla hadalnay gabdhahaan shir baan isla qaadanay tigidyaday soo iibinayaan khayr laha siiyo marka we're all on board for this insha allah haye shukri ka waran shirkaan suu ku leeyahay haye waxay u kahdiyey qofku waxay haye shukri waalaikum salaam shirkan horta waa shir aad iyo aad u wanaagsan waa shir la isku dhaafsado ra'yaasha talooyinka wixii dawladda loo jeedi lahaa wixii community-ga u baahan tahay ra'yi la isdhaafsanayo tala la siinayo xukuumadda cusub waana kusii wadeennaa shirkan inaan maarata wixii tale ah meelihii laga tuusin karo meelihii aan dhaliilka u aragno meelihii wanaag u aragno inaan sheegno internetaasha gelino facebookyaasha gelino marka waa runtii shir fiican waayo oo maaragtay soomaalinimo ah u dheehan tahay in waddankeena noo hagaago marka waddankeena ah afdabarkeeni waa waddankeeni waa meeshaan ku hiri lahayn marka wixii wanaag oo waddan ku jiro waa inaan maaragtay ku disaacnaa waa shir wanaagsan. Thank you very much. Aye, Rogia, 5 minutes. شكرا عبد الله عدو انت شفتها راح سنه ما شاء الله. تاسع That's it. Aye, Wilson. Aye, Wilson. waa la sheegay anagu aad aan u faraxsannahay horta dowladda cusub aa noo dhalatay and waa ku faraxsannahay taas sababta aan u faraxsannahay waxay tahay dad badan oo dibadda joogo khaatiyaan ay taagan yihiin waxay rabaan waddankooda inuu noqdaan annaga dibaddan joogno waxaan sugaynaa inay ay dadkaas meeshii noo nadiifiyaan oo iyadoo maaragtay nadiif oo nabadgelyo inaan tagno marka we are ready to go back hadda waxaan malaynaa things are changing wixii waa isbedeleen marka haddii hadda maanta annaga waxaan malaynaa internet meesha waxaan ku jirnaa arfarmaajo ii geeya alxamdulilah waa tahay marka waxaan dhihi lahaa hadal waxaa jira aan kusoo gabagabeynaya insha allah adeerna oo noo ducayn doonaa insha allah waxaa jirta ka tashada cadaawuhu isku tiirsanaada waxaan leenahay farmaajo iyo dowladda oo dhan waxaan leenahay ka tashada cadaawuhu maxaad dhahaysiin ka tashada cadaawuhu isku tiirsanaada haddaydan cadowga ka tashan oo idan isku tiirsanaanin waa kala tegaysaan annana waa idin qabsanaynaa sidaan idiin haysanay marka waa inaan cadowga ka tashanaa cadowgiina waa garanay waa baranay waa aragnay wax noo haray miyaa jira wax noo haraa jira qabiilka xaguuna geeyey qabiilka xaguuna geeyey waa maqlaysaa abukar waa lagaa boodboodiyey midow xorow midow xorow adeer maxaa tiri midow xorow haddaadan midoobin ma xoroobayso haddaa xorriyad rabtid waa inaad haddaa xorriyad rabtid waa inaad abukar ma hadla haddaa xorriyad rabtid abukar waa inaad united we rise qof walba facebook gal united we rise is register garay isqor soo geli wixii muhiima u baahan tahay waa kaas ahay adeer noo duco qarnaa ku siiyo اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مباركا اللهم ان الحكومه الجديده اللهم وفقهم الى ما فيه خير هذا اليوم اللهم ولينا اخيارنا اللهم اكفنا اللهم يا رب ارجع الى الصومال رجع الى الصومال مجدها يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه March 25